kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa daafuray shirka kobcinta dhaqaalaha dalka maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa mar kale dhageysatay dacwada loo haysto eedeysan Said Cali Macalin Daawud Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo safiirka Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal dawladda Soomaaliya iyo Azerbaijan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal madaxweyne Dani ayaa lagu eedeeyay khilaaf kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya inuu ku cabirinayo shacabka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa daafuray mashruuc aqalin loogu sameynayo xaruurta ku dhalato dalalka wadnaha gudoomiyaha hay'adda Sadmaha ayaa Muqdisho kula kulmay hay'adaha safiirka dawladda Jaynaha madaxweyne Laftagareen ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayo gudoomiyaha gobolka Baay faahfaahin laga helayo howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Baay madaxweyne Dani ayaa safiirka UK kala hadlay khilaaf kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa